Abdullah ibn Mas'ud ayaa sheekeynay wuxuu leeyahay goor ay ahayd salaadii cishe kadib Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa garabka ay qabtay markaasuu ii bixiyay banaanka magaalada Madiina goob cidla ah ayuu igeeyay meeshii ayuu i fadhiisay buu leeyahay Abdullah ibn Mas'ud inta dabadeed Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa halkii aan fadhiyay goobo ama xariiqjin sida u soo xiray markaasuu ugu yiri ibn Mas'ud oo halkaas fadhi oo ha ka bixin xayndaabkaas ruuxna hala hadlin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa iga tagay ayuu leeyahay muddo badan ama waqti badan ayuu maqnaa goor dambe oo ay saq dhexe tahay ama habeenka qaybtiisa dambe ay ku dhowdahay ayuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo laabtay buu leeyahay markaasuu soo galay halkii aan ku jiray oo xayndaabka ahayd waxa uu ku saaxday bowdadeyda ayuu barkaday buu leeyahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa uu gamay oo waxa lagu garan jiray Nabi Muhammad inuu gamay ayuu leeyahay xuura yar buu lahaa markuu gamay Nabi Muhammad oo xuuradii galayna waxa soo muuqday aan arkay buu yiri rag aad u labisan yaani labiska ay wataan aad u qurux badan yahay wuxuu leeyahay raggaasi haybada ama quruxda ka muuqanaysa Ilaahay baa garan kara ragii waa ay imaadeen laba ay isu qaybiyeen qaar waxa ay fariisteen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madaxiisa ay fariisteen qaarna lugihiisa ay fariisteen markaas ayakii waa sheekaysanay waxay yiraahdeen yaani ninkan ruuxan nabiga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa la siiyay ruux la siiyay ama bashar la siiyay ma aanan arkin ay leeyihiin waa saxu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayru khalqillah wa aha ilaahi inta uu abuuray ayuu ugu khayr badnaa nabiyadana waa ugu fadilnaa oo nabiga ugu fadliga badnaa ayuu ahaa oo ruux intaas ilaahay uu siiyay maba uu jirin ayakii waa sheekaysanay waxay leeyihiin ruuxan ama nabigan ma jiro wax la siiyay qof la siiyay ma jiro markaas isjiraadeen yaani dhaxdooda ay ka sheekaysanaya bal wax ku miisaal oo yaani wax ku tilmaam ruuxan waa dhaxdooda wax sheekaysanaya markaas qaarkood waxay yiraahdeen yaani waxa aan ku tilmaami karnaa boqor ama sayid qasri weyn dhisay intaas dabadeed kulmiyay wax alla wixii cunto ama baahi bini aadamku u baahnaa oo dhan kulmiyay markaasna nin diray dadka inuu ugu yeeray inay imaadaan cuntadan si ay u cunaan ruuxii soo raaca ninkaasna waxa uu cunaya oo ka dhalgaya cuntada sayidkaas ama boqorkaas uu diyaariyay ruuxa aan soo raacin oo diidana sayidka ayaa cadaabaya yaani oo sidaas ku tilmaameen ishaaradaas inta dabadeedna waa iska tageen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa soo toosay markaas uu ku yiri ya ibn Mas'ud ma garanaysaa waxay ahaayeen ragani maya Ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan garanay ayaan ku idhibu leeyahay inta dabadeedna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri nimankan aad arkaysay waa malaa'iktii yaani miithaalka ay bixiyeen ama tusaalaha ma garanaysaa maya ayuu yiri rasuulka Allah ma garanayo wuxuu ku yiri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusaalahan wuxuu yahay sayidka ama boqorka waa rabbul aalamiin yaani qasriga weyn oo dhisay oo cuntada iyo wax walba uu ku kulmiyayna waa jannada ruuxan loo diray ama ninkan la diray ee leeyahay dadka ugu soo yeerna waa nabiyada iyo rasuusha Rabbi tabaaraka wa taala uu adoomadiisa u diro si yaani ay barwaaqadaas iyo jannooyinkaas ay u soo ajiibaan ruuxa soo ajiiba janna ayuu tagayaa oo nimcada iyo barwaaqada ayuu helayaa ruuxa diida waxa uu caroonaya rabbul aalamiinka isla markaasna boqorku waa u cadaabaya boqorkuna waa Ilaahi subhanahu wa ta'ala hadaba ruuxi qaada dariiqa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo halka ugu yeeray oo ah janno waa u liibaanaya ruuxa diida ee caasiyana hoog iyo cadaab iyo meel dar ayuu doortay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markuu naftiisa miithaalinay wuxuu ku yiri anigu waxa la mid ahay ruux habeen madow ama nin habeen madow dabshiday isla markaasna baalista iyo xasharaadka oo dhami ay ku soo kulmayaan si ay ugu daataan isla markaasna uu dabka ka celinayay inay ku daataan anigu guntiga waan idin soo hayaa oo naar baan idin ka badbaadi tagayaa idinkuna dabkaas baad ku hoobanaysaan Rabbi tabaaraka wa taala ku Nabi Muhammad u shafaaca qaada oo janno noqdo baaqigoodana Allah naga yeelo waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan si gaarsiyo kuwa kale oo isan gaarin